السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن مدحوينه waxaan rabaa inaan adiga iyo inta ka socota golaha wasaaradda iyo golaha baarlamaanka federaalka inaan salaamo. waxaan magaaladan u nimi wafdi khaatuma ah inaanu ka qayb galno caleemasaarka madaxweynaha madaxweyne ku-xigaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug. waanu daawanay TV-ga markii doorashada lagu qabanayay halkan, waana maqlaynay muddadii dhowrka bilood ah ee hawshan halkan laga waday ee adiga madaxweyne iyo prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka wasaaro badan ay ka soo qayb gashay dadaalka dawladda dhexe ay u gashay in maamulkan la dhiso. waa laydin qirayaa waana laydinku ammaanayaa, laakiin waxaa ammaanta leh bogaadinta leh intii reer galmudug ahayd ee halka isugu timi ee iyadoo wax laga sheego galmudug iyo mudug iyo 20 jir mudug ku dhashay ilaahay ceebtiisa ma asturin. laakiin markan hawshoodii way guteen, waa ku hambalyeynayna, waa ku bogaadinaynaa. haddaanu maamulka la ilaawayo ee khaatumannahayna waxaanu diyaar u nahay inaanu walaalahayo la yeelano xidhiidh, inaanu mataanayno labadaas maamul. magaaladan la yidhaaho Cadaadana waa horo hadda aan sheegin baan u malaynayaa inaan anoo baabuur ku jira maray, laakiin magaalada tan asxaab badan baan ku leenahay, reer khaatumana ku leeyihiin. saaxiibkay Axmed Diiriyaaba sheegay isla intii aan duruqan islaamiyiintii soo bixinna Axmediye iyo Saalixiye ayaanu isla ahayn. marka magaaladan la yidhaaho Cadaado annaga wax weyn bay noogu fadhidaa, farxad gooniya oo weyn bayna noogu fadhidaa ka soo qaybgalkan. waxaan wax yarun ku oranayaa dhibaatooyin baa la sheegay weli taagan. haddaynu ibni aadan nahayna oo meel dad badan ku nool yihiin, haddii wuxuu family yahay ama qoys yar oo reer guraa ah arrimahooda waa maamulan karaan. dhibaatooyin way jiraan, kuwa nabadgelyo ha noqdeen, kuwo ismaandhaaf ha noqdeen. teena 11 beelood ee la sheegay waxaa markan weheliya arrimo gobolkan geeska Afrika iyo arrimo iyana internationala. haddii xal loo rabo galmudug inay nabad ku wada noolaadaan, Soomaaliyana nabad aan ku wada noolaano, dhibaatooyin Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin xal siyaasi ah oo Soomaali ah. ciddii gacanayna ku siinaysaa waa meesheed, laakiin xalka innaka leh. xal jujuuba ama dusha leynagaga habiyey ama meelo kale laga soo maamulay meel fogina geymaayo. waxaa markaa loo baahan yahay in loo dhabar adaygo oo dadka ku nool galmudug ay iyaku hawl fiican bay qabsadeene ay aaminaan kartidooda. waxaan u malaynayaa 2 khudbadood oo aad iyo aad u fiican yaan maanta maqlay. mid waxaa khudbadda soo jeediyey saaxiibkay Cabdi Qaybdiid. waa ninaan muddo badan isnaqiinay, waa nin khibrad leh, aan wada shaqaynay, karti badanna leh. isaga waa ka filayay, laakiin Baarleex runtii kama filaynin. labadaa khudbadoodba waxaa habboon labadaa khudbadoodba ummadda in loo gudbiyo, ummaddu ay ka faa'iidaysato khibradda ay nimankaasi ku hadleen. waxaan u malaynayaa khudbad iyana ninaanan markaa tol siyaasadeed ba ahayn u akhriyey
sheekh shariif markii laga adkaaday hadda markaa anagu umana vote garayn tol siyaasadeedna maanan ahayn khudbad uusan soo diyaarsan iyo habeenka akhriyay waxay runtii mudan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed inuu khudbada akhriyo oo ku noqnoqdo laana waxay tusaysaa dareen saayida iyo khibrad muddadii uu siyaasadda Soomaaliya ku jiray uu si fiican u cabiray dimuqraadiyadan iyo hawlahan aynu waayadan wadnayna waxay ku soo ururaysaa cidda laga reeyo ama qof ha noqoto ama koox ha noqoto ama xisbi ha noqoto inay ogolaato in laga reeyo oo ay hawshana halkii ka sii wadaan waxaan hadalkayga ku soo koobayaa waagii dagaalkii labaad uu dhamaaday baa niman Soomaaliya cadan ku noolaan jiray baa Burcaymi bahal gramophone oo waagaas heesaha laga dhageysan jiray yuu mid saaray hees ay qof haweeno hindi ay qaadayso yaa waxa maqlay niman dariiqa maray heestiina waxa ugu dambeysay cadan waa ay joogeen mid baa wuxuu yiri warnimayo maanaka wala mis cadan baa laga heesayaa mid aan arinta u leeyahay waa mid aad noo taabanaysa haddaanu nahay reer Khaatumo haddaanu nahay inta reer waqooyiga ah ee midnimada Soomaalida rabta waxaan maqlaynaa waa la naxtiimayaa gobolada la dhisayo oo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe haddii la bogo gudoomiyaha saaxiibkay Muungabna xoogaa laga soo jafjafay banaadir buu sheegaya laakiin warkaas wuu soo noqnoqday oo waxaad ba moodaa reer koonfur inay midda heshiis ku yihiin su'aasha meesha taala waxa weeye maxaa loogu talagalay ummadda Soomaalida ah ee waqooyi ku nool ee midnimada Soomaaliyeed rabta waxa loogu talagalay wuxuu yahay hadda qof iyo maamul kuma eedaynayo laakiin waxaad ba moodaa wali caruur talayir xamarweyn iyo cadaada ku shiraakoobay iyagoo hadaaqaya ma maqal laakiin waxaan u malaynayaa kuwaas qudhadoodu inay ku hadaaqayaan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe noo hadhay bal haddaba macadan baa laga heesayaa mise annaga waalan arintu bal magaaladana waa magaalo meel weyn nagaga taala madaxdii qaranku waa joogaan waxa jooga dad badan oo mas'uul oo Soomaali ah hadda bishan aynu ku jirnaana ama maanta waa 24 July ama Luulyo waxa inoo hadhay sanadkiiba ka hadhay waa dhowr bilood hadda 2016na waa dhow yahay arintaasu waa arin loo baahan yahay in laga hadlo in laga doodo in miidiyadeenu ka hadasho in meeshii dad Soomaaliya oo midnimo Soomaaliyeed raba oo horumar Soomaaliyeed raba oo nabad raba oo dadku inay aayahooda ka taliyaan raba arintaasu arinina sugaysa maaha haddaan arintaa loo soo jeesana anigu waxaan waaba laygu yaqaanay waaba eedaye warkayga waa cadaystaa waxa muuqata kala go'a Soomaaliya inuu koonfur ka socdo kala go'a Soomaaliya meesha lagu eedaynayo Somaliland waxaaba kula shaqaynaya koonfur Soomaaliyeed koonfur baan qiraynin inay dadka midnimada Soomaalida raba ee u dhimanaya hadda ma aha Khaatumo ma aha waxaan qabaa dadka majority-ga
كنول وقوي أما سومالي لان إنay rabaan midnimada Soomaaliyeed haddii sida muuqata oo laga soo rogto ee dayaale taariikhda sheegi doonta aad iyo aad baad u mahadsantihiin